soo dhawaada kuna soo dhawaada intii aan hore soo galnay golaha siyaasadda oo ah dii aad dantaada moogaan weydo oo ta qaran ka shaqeyn weydo taaduna dhisi mayso markaa maanta waxaa soo gasheen halkii ugu sarreysay baarlamaanku weeyaan ee siyaasadda lagu hogaamiyo oo qarankoo dhan aada eegayso waxaad ku soo dhawaataa gardarro badan oo qaadataan waxaad ku soo dhawaataan xagaxagasho badan oo xaq laydinku lahayn ood qaadataan waxaad ku soo dhawaataan oo idinku adag adaa yidhi dadkii doorta gobolkii waa lagu soo doortay inaad qaranka iyo gobolkii waxu qabataan la doonaya ra'yiga wanaagsaneed waddaa inaad ku qancin karto dadka aad talada wadaagtaan ee faraha badan intaas baa laga rabaa dad siyaasta qofka kaa soo horjeeda ra'yigaa aada la guuxaysaan eed waxaasoo dhiba usoo martaan eed walba u bariday ee ku aanidaa weligii u hadasheen aad waxaad soo marteen aad soo marteen eed iminka inta haraalku haysta oo lagaa doonayo kharash lehe hawl lehe hadal lehe raalgelin leh aydaan gaari karayn wuxuu ahaa fikir baan hayaa fikirkaasi aan doonaya dalka ugu horumariyo gobolkaba ta kuugu adaga laydka raba waxa wey inaad fikirkaa ka qancin kartaan intaad talada idka dhexayso ila keliya goy kari maysid waa gobolladii oo dhan waa dadka oo dhan haddii kale fikirkaaga ma soconayo hadduu socon waana laban bay kuu tahay inaad carruurtooda xargushto oo waxay ka dhacaana buuqa iyo isqabsashada iyo shaqaaqooyinka ay ka dhacaan iyo inaad niyadjabtood meel iska fadhiisato midna ogaada waxaana gasheena siyaasaddu albaab laga soo galay leda mid laga baxa maray kari maysid u fiirsan odayaasha gawoobay ma aha siyaasiyiin odayga ilaahay wax siiyey ee reerkiisu barwaaqayay ee reerkiisu tamariyey markuu daalu geeska fadhiisto u canaan badan yahay war kaalay warraba war maxaa la yidhi war miyaan waxa weydiinaya war see waxa leedihin waa markuu taa gabay hadda waaba si adoo qarankao dhan ama gobol dhan hogaamiyey intaas waa iga hoga tusaale hawsha idin taala aad bay udhi badantay maanta waa kulan ka horreeyey waa ogyihiin waa ogahay inaa wax badan idinka buuxo oo mustaqbal ku saabsan oo dhibaatada soo marteen ku saabsan oo imika lafihiina u saabsan oo aad doonaysaa ina ka hadashaan anigu waxaan dhisayaa yaasiin brofessorka iska dhaaf macalinimadii iska dhaaf markii afweerada dagaalamaya isagoo brofessor shaqada laga eriyey oo maqaaxyaa furtay fuka candiidka ahaa iskaba dhaaf waxaasoo dhan 1991 shirkii ugu horreeyey ee nabad lagu dooro garaad cabdilqani iyo isaga iyo ninkii la odhan jiray fagare iyo rag iyo odayg sakraan ina cali caad adeer dee dad baa jira le ahl beder oo maalinta adkayd dalka wax ka qabtay bara saabkii ugu horreeyay 91 iyada oo dee qori wadsta ninkii ka hortagay wahaa nabadii ka soo bilo 7 shilin bar laga qabtay ninka ku jiray oog baa laga bilaabay reeraha laga heshiisay 7 maray shirkii berbera kii burco kii bo dawladdii ugu horreysay waxaa la leeyahay wixii dagaal socona tii cigaal bal hadda eeg intaasoo caafimaad darre iyo dagaal iyo somaliland taariikhdaasu ku leeyahay nasiibna uu ku leeyaho maalintii aan forinka u dhiibay dee intii uu joogay wixii khayr soo kordhay waa ogti dadaal laha ahaato niyad sabidda uu somaliland ka qaban lahaa marka intaasi waxay iga tahay kumana ammaanayo idkamana iibinayo waa taarikh faagta oo taala marka arrintani waa arrin aada iyo aada masiirka somaliland uga dhab oo la doonayo waana messajka aan intaa ka dhiibay doorashadaana waynu gelaynaa tartankaa ololahaan xoog baynu gelaynaa kulmiya doorashada guushu ka gaadhay hadduu 100 xildhibaan reer kamu gaadhay caalamka oo dhan iyo somaliland ayaa u qirtay kulmiye inuu danta somaliland iyo somaliland ictiraafkeeda iyo halkay ku socoto uu ugu hawl jiro ka markhaati furay waxaa markhaati dhacayaa kulmiye u dhacaya kulmiyana waynu u sibannahay nina keligii male madaxweynena male guddoomiyana male wasiir male waa loo kala badan yahay mas-uuliyadda waa la kala qaadanaya laakiin qof kasta oo kulmiye ah ayay guushaas somaliland mucaariya muxaafida u qiraysaa caalamkuna u qiraya guur ka weyn oo la garan maayo afrika iyo caalamka way la yaaban yihiin dal aan la ictiraafin
oo dhaqaale haysan oo doorasho qabtay oo mucaaridku weliba la silmay ama baarlamaankii mid dheer yahay oo haddana raalli ka ah waa maxay dee waa biseelka kulmiyadee maxaan foodka u qabanayna mayna inagu yeelano ambaaniya sacab ku helaaba adag taa sidaad barraa oragu socon weyd xisbi loo tumaa carabtay ka socon lahayd 99% ma socoto bilaadmi wararana ka qancisa siday ku timi ma inagaa dhaliin lahayn ma waxyaalo kalaa jira waa laga darsi doonaa food waliba wuxuu leeyahy waxyaala unexpected waxyaala aan la filin baa soo baxa kulmiye asad buu haystaa aaminaa dalka oo taariikhiya oo ummaddu maanta ku aaminsan tahay maxaa la soo gaaray in somaliland iyada oo midaysan oo is-ogol saddexdii xisbi oo mucaaridka ah oo midda mid la hadlayn rijmada oo dhan ay saf wada galeen ee natiijo wada qaateen ay sabriyeeyeen dadkaagii ood u wada jeedsan meel maxaa ka weyn xisbi muxuu gaari lahaye guulee ka weyn haddaan cambayn taba ku galan 100 iyo soo xarisano aynu 87 waan haysanaa laysku wada haysto oo wada guuxayo maxamed baan kula tagi lahay waa ilaah wad saalayn aad iyo aad waa mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مضيال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب مرة كوال وحلقة على سودوينتا يوم الدعاء مدحونا يوم مسؤولين على حكومة هذه أدنى مخرجي سودوينيا وأنا يبدو أي ما يوصل la sheegay in ilaahay xilka maalin buu xilka qaadaa xil culus baad oo muddo dheer rag saaxiibadii kusoo fadhiyeen oo isbedel geli lagu taaneeyey oo maanta dhacay bishan insha allah yaad qaadeen runtii waxaan ku qaadeen maanta magacii xisbiga kulmiye yaad intiinaa ka fadhida oo soddonida aad ku soo baxdeen marka hore waxaan isxasuusinaynaa daacadda eebe in qof walba ku horreysiiyo daacadnimadu iyo kitaabka gacanta aynu saari doontaan qiimaha uu leeyahay in nin walba culeyskeedii mas-uuliyaddeeda wilaasho isla markaana u adeego qarankiisa waa laba mas-uuliyad bayna fuulaysa qaranka guud ahaan baa ina saaran oo magaca yareen sheeganna isku qayqaybin ama gobol ama qabayl waxaa ka weyn qarannimada aynu maanta usoo halgannay ee dhib badan loo soo maray ee maanta oo u dambeysay aynu calaamadeynay dimuqraadiyadeennii orda kale soo koraysay inay meel aada u qiimo badan aan soo gaadhsiinay taa cidda sii dhammaystiraysaay waa golihii labaad baad tihiin ee dimuqraadi lagu soo doorto idinka maanta aanay sii dhammaystirtaan dimuqraadiyadda iyo sharafta iyo kalaamadeeda qabadii dalka u taalina cidda gufeynaysana raba inay dhammaystirto wixii ka dhinnaa shuruuc dalka u ahaa ee horumar u ah waa idinka xilkeedii saaran bay ka mid tahay inaad bini aadamku waa isku raacaan waa mabda xisbiyada waxaa loo samaystay in qabyaadeena ka baxno intii isku mabdiyeeba ay dhan sibirta isu gashato waxaan u baahnay haddaynu reer kulmiya nahay inaynu qarankan sidaynu meel halka joogaba inta koriga sii qaadi lahayn inaan isku kaashano marka anigu waxaan idinku dardaaryaa in qofku mabdi'iyan golayaal la soo wada maray gola deegaan baa rag soo mareen gola baarlamaan la soo maray qofka bini aadamku waa inuu mabdi'iyan aaminsanaado meeshu ka soo baxay haddii meeshu waxau ka soo baxay iyo xisbigu ka soo baxay wax ka dareemana si yani xisbinimo aan iskuu sheego laakiinse qofku inuu maalinba meel fikriyada raqiisa oo maarata maalin badan lahayn inuu raacraaco looga wanaagsan ninka weyn markaan waxaan leeyahay inta hawsha maanta koowaad na sugaysa horta nin walba waxaan ka qaban karna waana ka qabanaa aawada umaasida asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu sidaa madaxweynuhu sheegay maanta waa isbarasha uun oo waynu isbaranaynaa liiskii magacyada waanu usoo gudbinay madaxweynaha idinkuna de madaxweynaha waa wada garanayseen waxay ahayd un maanta inaynu halkan madaxtooyada isugu nimaadno hawlina way noo dambaysaa lixdaa gobol ninba gobol inuu ka hadlo intaasun baynu iyun baan odhanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu alhamdulillahi rabbil caalamiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu mudane madaxweyne ku-xigeen waad mahadsantihiin anigu miiska waxay ugu dambeeyaanoo madaxweynayaasha su-aalo weydiiya marka maanta xagga kale ka soo fadhiistay alxamdulilah
madaxweyne mahadsan tahay dhammaan waxaan soo dhaweynaya xildhibaanada gobolada Somaliland ama ku hadlaya magaca gobolka Maroodijeex calaamadeedu inay maroodi ahayd waad mahadsantihiin ilmaha yarwal xildhibaan ku soo dhawaada gobolkiini caasimadiina ku soo dhawaada gobolka marti kuma tihiin horeba u joogteen madaxweyne raggan waa garbihii aad ku duulisay waa xildhibaanada baarlamaanka Somaliland xisbiga kulmiye taliye madaxweyne raggan soo yardaaleen dhammaantood waa mujaahidiin inuu ugu reerkiisa ka soo dhaxalgamay soo dhawaada hadday reerkiisanaayna martiqaad ay sameynana ama gobolka Maroodijeexa maanta aan idin sheegi doonaa insha Allah taala ama santi madaxweynaha ku-xigeenka golaha wasiirada iyo asxaabtooda xildhibaanada cusub ee golaha kulmiye waan marka hore waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta waa maalin weeyaan waxa weeyaan maalin aan ka soo baxnay hawl culus oo ah tartankii adkaayna soo galnay ee lageedeen alxamdulillah ilaahay hadduu naga dhigo intii soo guulaysatay maanta halkaas kugu timiday marka hore ilaahay aan xamdi naqdo inaguna aan waajibaadkii layna soo doortay iyo hawshii laynoo egmaday aan noqono kuwa insha allah ka soo bixi doono taasi waa ta koowaad arrinta labaad ee aan muxuu ahaa halkan aan ka sheegahaya waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha iyo intii nagu casuutay xisbiga maanta inaan isbaranno waa xawayaan barashadii koowaad إن شاء الله وحنا رجين دونا إن المستقبل خلنا إنه أعتقد شكل سن دونا إنه سبران دونا حسب قالوا وحيا أنا قدنا عايز واجبنا وقع إن قبلنا ديار بار معي هدان هاي حل بارنا قولك عاوضة هذا عصب على صوت دورتي وحوي بعد السلام يا برلابات هذا كل هذا جنايو قولك أول ما نبغى قوي نبغى برلاقو كوشر وانفي عنين قبل كلمة حول رجينا أنت عين لك بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا مدحوينها يا مدحوينك يا وزيرها waxaa la aad iyo aad bay mahadsantiin asuubadan aan ugu soo casuntayna halka maaragtay ugu martiqaadaan ma ugu qaabishaanba runtii aan gobolka saaxil afar nin baan anagu kaga soo baxnay runtii ninkii ugu horeeya hadal badan hadalkiisa badan yidhi waxa muhiim ah waxa weeyaan inaan dadaalo doorashada ka soo baxnay doorashadaas xaraf badan bay leedahay xaraftaasna meel walba way taalaa iyo nafsiga hawl kale oo taalo u baahan inaan dadkii dib ugu noqono aynu agaasino si magaranaysa aynu ugu diyaar garowno hawlaheena dambe iyo programmadeena dambe haddii aan la yidhaahdo aad iyo aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada xildhibaanada cusub shaqaalaha madaxtooyada dhammaantiin waan idin salaamayaa salaanta hore aan idin qadimada ku salaamayaa hadalka yara socday anigu tog dheer baan ku hadlayaa aad iyo aad bay mahadsantihiin madaxda qaranka kulankana noogu yeedheen ee isbarashada ah waan idinka ajiibnay runtii dee hawl badan baa inoo taalla hawsha inoo taalla ma yara tii hore ee hayseen ayaa mid kale ku soo biirtay oo dee xil badan baa idin saaran ka xildhibaanna ahaan anagu diyaar baan nahay wixii hawla aad iyo aadna way mahadsantihiin aadna waan idin salaamayaa يا رسول الله مدحوينه ku-xigeenka xubnaha golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo shaqaalaha madaxtooyada dhammaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib gobolka Sool horta waxaan u malaynayaa inaanu nahay gobolka aqlabiyadda ugu weyn xisbiga u keenay inta horta waxaan idin ku codsanayaa shacabka noogu tintaan waxay madaxweynahana waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne waxaan u noqonaynaa saldhig xisbiga baan u noqonaynaa xildhibaanada yadan oo dhani intact baan ahaanaynaa xildhibaano isku xiran baan ahaanaynaa xildhibaano difaaca barnaamijka xisbiga iyo barnaamijka dawladda haddii ilaahay yiraahdo baan ahaanaynaa mara hadda waxaynu ka soo baxnay jihaad al-asqar marka waxaynu gelinaa jihaad al-akbar oo xadiiskii nabiga marka jihaadku waa sida qaranimada loo hirgeliyay iyo barnaamijka loo wada iyo nafta lala dagaalamayo nafta la saxay in kala qaranimada waynu saxaynaa oo aynu saxaynaa haddii ilaahay idmo aynu ugu horeyso sida baarlamaanka aan u maamulno oo barnaamijka xisbiga ugu soo hagno oo muxuu ahaa barnaamijka dawladda ugu soo hagno oo aynu halkaa guul weyn uga gaadhno marka aad iyo aad baan diyaar ugu nahay xildhibaan ahaan oo dhan markaanu isxuuraansanay
madaxweyne adiga iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumaddana waxaan idinka ilaalinaynaa inaad midnimada aanu maanta ku nimi meesha noo ilaalisaan oo sidaa nagula shaqaysaan oo aad naga ilaalisaan dayr inaad noo soo xidhaan ayaanu aad iyo aad idinka codsanaynaa waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudan madaxweyne mudan madaxweyne ku-xigeen wasiirada sharafta leh iyo xildhibaanadaba islaanta islaamka ayaan idinku salaamayaa. mudan madaxweyne mar hadday tahay munaasabadani isbarasho iyo soo udhaweyn keli ah dee wax la yidhi kulli maqaam lahu kulli makaan lahu maqaal annagana shabaabtu waxay noqonaysaa mahadnaq iyo inaanu dhownahay. waa ku mahadsantiin irtiqaadka si qalbi furan oo shaqaalaha iyo cid kastoo khusayso ayaa noola soo dhaweeyey. waa ku faraxsannahay, waa ka mahad celinaynaa. xildhibaanada iyadan fadhiyana waxaweeyaan midamar buu kulmiye noqday ragoo aas-aasay sida aniga iyo rag badan oo kale xisbiga la aasaasay iyo rag dhawaa noqdaba waa isugu jiraa. jalsadii iyo fadhigii koowaad aanu si fiican isula jaan qaadi lahayn waa kan baan filayaa. mar baan wada mahadnaq baan ku koobayaa ma dheeraynaye aad iyo baan mahadsantahay dhammaantiinba. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam. madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha labaad ee xisbiga kulmiye xubnaha golaha wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka ee xisbiga kulmiye ka soo baxay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hambalyada waxaan la qaybsanayaa madaxda xukuumadda aad iyo aad waxaan idinku hambalyeynayaa guushii gaadheen oo aad iyo aad tac badanna idinka gaadhay. raggii dee goobshooga ahaa ee maxaan ku dhahdaayey idin weheliyena ka qayb baan ahaa. dhibaatadeeda iyo xanuunkeeda iyo hawsheeda intaba intaa qaran la ekayd waa la soconnaa. waxaase ilaahay mahadiya inaad soo baxdaan. wuxuuna waa magac adduunyada waa la iska helaa, magacdaana lagu raadiya. siyaasadana dee xoogaa loo huraa, macnaheedu maaha in xoola laga helo. waxa guul ah inaad soo baxdeen. waxaa guul ah inaad xisbigii xisbulxaakimkaha inaad ka soo baxdeen. waxaan qabaa guushiinana inay qayb ka ahayd. ama laga yaabaa inaad dee wax yaro hetanayseen, laakiin iyaga laftoodu dhinacyo badan bay waxtar ka ahayd. oo badan yahay dadku ku raagi maayo. waxaan jecelahay inaan mar labaadna hambalyada ku celiyo. waxaa inoo harsan sida casoowe u sheegay dagaalka kii weynaabaa inoo harsan. odaybaa halkan inoo fadhiya aynu rabno inaynu kursigaa gudoomiyaha aynu ku fadhiisino. aad iyo aad baan idin salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. madaxweyne ku-xigeen golahan sharaftale ee aynu maanta ku casuumnay xukuumaddu ku casuuntay xildhibaanadii inoo soo baxay waa golo barakaysan oynu ku ducaynay. waxaynu marka ugu horeysa fulinnay waajibaadkii qaran ee nasaaraa marlabaadkiina xildhibaanaha xisbigeenni iyo xukuumaddii u soo baxay. xildhibaanada inoo soo baxay waa hambalyeynayaa waana u mahad celinayaa. ilaahayna waxaan uga baryayaa kii dalka iyo dadkaba anfacay inay noqdaan. intaa waxaan raacinayaa waxa weeye xildhibaanadu waxay u soo baxeen saddexdii golo qaran golo ka mida oo golo sharci dejinta ah inay ka mid noqdaan, inay qarankan kaabaan iyo xukuumaddan iyo horumarka dalkeenna iyo halkaynu higsanayno in la gaadho. kelmadda qura aan dhaqaangaraynaya waxa weeye 82 xildhibaan baa dalka ka soo baxay idinkooda xildhibaano qaran ah. waxaase idinku waajiba maanta shirguddoonku inaanu naga leexan. yaasiin loogu danayn maayo, waxaa loogu danaynaya qaranka, waxaa loogu danaynaya horumarkaynu doonayno inaynu higsanno dalka sida loogu wada shaqeyn lahaa, horumar loo gaari lahaa, maalinkan maanta loo fulin lahaa wixii aynu dee u baahnayn dowladdu u ahaa. waan ku dheeraayo. asalaamu calaykum. madaxweyne xildhibaanadan mar waan hambalyeynayaa, marna wuu ducaynayaa, marna wuu xusuusinayaa. mar waxaan ku hambalyeynayaa halganka adag ay soo galeen ee ay ku guulaysteen. waxaan madaxweyne halkan lafteeda ka xusayaa xildhibaanadii musharaxiinta ah ee ka socday kulmiye intii aan ku guulaysan iyaga laftigooda waan hambalyeynaynaa dagaalkay la yimaadeen.
marna waxaynu u ducaynayaa waxaa loo doortay xil adag if iyo aakhira mid isweydiinaya ilaahay subxaanahu watacaala ha idin fududeeyo gabdheenna hanaga fududeeyo arrinka xasuusinta madaxweyne xildhibaanadu shaqooyin badan baa sugaya laakiin haddaan kala wara qaado ilaa 7 xil bay leeyihin koogu horeeya waxa weeye waa sharci dejinta ka ku xigana waa miisaaniyadda iyo ansixinteeda ka kalna waa dabagalka ka kalna waa nabadda door weyn baa ku leeyihiin nabadaynta iyo midnimada qaranka ictiraafka laftigiisa door baa ku leeyihiin oo baarlamano ayaynu doonayno ka dhigan dooranno ictiraafkeena kaalintiida ku leeyihiin dadkii soo doortay laftigiisa waajib baa idinka saaran inaydaan ilaawin halkaa kaga dhaqaaqin madaxweyne baarlamanku waa 3 dhadhaar ee xukuumadda uu ka mid yahay sharci dejinta iyo fulinta iyo cadaaladda haddaana 3 wada shaqayn way fashilmaan cidda fashilkaasi waxay dhaawac weyn soo gaarsiinayaan waa dadkeena wixii laynagu doortay oo aanu ballan qaadnay ayaa meesha ka baxay sidaa wax loo baahan yahay wada shaqayn sokeeya meelana 3 dhadhaar xisbiga mucaaradkana ku jooga aad bay mahadsantihiin. asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu.